waxaanu ku bilaabaynaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea ayaa saaka tagay magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay waana markii ugu horeysay ee madax ka socota Eritrea ay booqato Soomaaliya tan iyo intii dalkani uu madax banaanida ka helay Ethiopia oo uu ku biiray qaramada midoobay sanadkii 1993 Eritrea waxa horey lagu eedeyn jiray in ay gacan military ay siiso kooxda Al-Shabaab ee la dagaalanta dowladda Soomaaliya si kastaba ahaatee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqday dhamaadkii bishii hore magaalada Asmara isagoo heshiis lagu hagaajinayay xiriirka labada dal la saxiixday dhigiisa wadankaasi madaxweyne Isaias Afwerki. haddaba xiriirka cusub ee labada dal ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyay waxaana Djibouti oo ka hadashay ay tiri jamhuuriyadda Djibouti si weyn ayuu u dhibay hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in xayiraadda hubka laga qaado wadanka Eritrea. haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka hadlay sababta wafdigani Muqdisho ay u yimaadeen. wafdigu wuxuu ka kooban yahay wasiirka arrimaha dibadda Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha waxay u yimaadeen in iyagoo ka jawaabaya socdaalkii dhawaan uu madaxweynuhu ku tagay dalka Eritrea ayay goosteen in dhaqso uga soo jawaabaan muhiimadda waxaan baarsan yahay waxa weeye in la xoojiyo xiriirka labada dal ee walaalaha ka dhaxeeya. goorweed ayaan haddaba waxaan la hadlay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah nin ka faalooda arrimaha geeska si arrintani uu xogo yiraahdo. Soomaaliya wadamada diriskeeda iyo adduunyada oo dhan inay calaaqaad la samaysato oo ayna soo booqdaan oo aan booqano waa qayb kamid ah adeega iyo farsamo wanaagga dowladnimada. Eritrea weligeed ma cadaysan oo si cad uma ayna dhihin waxay taageertaa Al-Shabaab laakiin waxyaabaha lagu eedeeyay waxaa kamid ah markii la saaray cunaqabataynta inay Al-Shabaab na taageerto isla markaasna ay duulaan ku ahayd qarnimada Djibouti saas ayaa lagu saaray cunaqabataynta marka hadda ma sheegi karno oo ma dhihi karno taageero ay siinaysa hadii waayaan ayaa Al-Shabaab laga adkaana ama waa adkaanayaan ma dhihi karno taas waxaan u kaadina waqtigan sugayna geeska Afrika waxa ka socda isbedelaas waxay leeyihiin istaraatiijiyada kala duwan ay leeyihiin anigu waxaan qabaa inay soo socoto cabsi siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibaddana asal ahaanba waxay ku socotaa wado aan sax ahayn oo aan lagu sameeyeen wax akhris ama diraasad